banaanbax looga soo horjeedo dil ciidanka amniga ay u geysteen qof rayid ah ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Cumar Maxamed Soomane ayaa warkaan faahfaahinaya. wararka saaka laga helayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in xaaladda ginaansho laga dareemayo gudaha magaaladaasi kadib in muddo oo magaalada Laascaanood ay habeenkii xalay soo hareeyeen dibadbax ay ka qaybgalayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaaladaasi. dibadbaxa ruuxay magaalada Laascaanood oo hakad geliyay isu socodka dadka iyo gaadiidka ee gudaha magaaladaasi ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii shacabka ku nool magaalada Laascaanood ay cabasho xoogan ay ka muujiyeen dil la sheegay in ciidamada Soomaaliland ay u geysteen mid ka mid ah dadka rayidka ee ku sugan gudaha magaalada Laascaanood. gobjoogayaal ayaa xaqiijiyay in dadka ka qaybgalaya dibadbaxa ay ku dhawaaqayeen ereyo ay ku diidan yihiin ciidamada Soomaaliland ee gacanta ku haya amniga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ciidamada Soomaaliland oo isku dayaya inay xaqiijiyaan sugidda ammaanka magaalada Laascaanood ayaa rasaas ku kala eriyanayay dadka ka qaybgalayay dibadbaxa lagu qabtay magaalada Laascaanood. si kastaba ha ahaatee talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ciidamada amniga Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood ay howlgallo hubka lagu aruurinayo ay ka sameynayeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ma jiro wax warar oo ka soo baxay saraakiisha Soomaaliland iyo maamulka gobolka Sool ee Soomaaliland ee ku aadan dibadbaxa ka dhacay magaaladaasi iyo intuu leeyahay khasaraha ka dhashay oo ciidamada Soomaaliland ay u geysteen shacabka halka ku dibadbaxayay. xiisad dagaal oo u dhaxaysa ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa lagu soo waramayaa in saaka ay ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Shamis Xasan Haaruun ayaa inoo faahfaahinaysa. wararka naga soo gaaraya gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayeen in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxaysa ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa Soomaaliland. xiisadda oo si gaar ah uga taagan deegaanka Hadaftimo oo hoosta gobolka Sanaag ayaa timi kadib markii wafdi ka socda Soomaaliland ay tageen deegaankaasi kaasi oo hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Xuseen Maxamed halkaasi oo isku rasaaseeyeen ciidamadiisa iyo kuwa Puntland. wafdiga oo uu horkacay gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa la sheegay in weerar ay ku bilaabeen ciidamada Puntland waxaana halkaasi la sheegay inay ku dhinteen 2 askari halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen kadib iska caabin ay sameeyeen kuwa Soomaaliland. saraakiisha Puntland oo ka hadlay weerarka ay ciidamadoodu ku qaadeen kuwa Soomaaliland ayaa sheegay inay la wareegeen gaari tiknika oo ay wafdiga gudoomiyaha wateen. dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay dib u laabteen ciidamada Soomaaliland isla markaasina ay ciidamada Puntland kala wareegeen gaari nooca Land Cruiser ka. ma ahan markii ugu horeysay oo dagaal noocan oo kala uu dhex maro ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland kuwaas oo isku haya maamulka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. madaxda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa dhaliil aad u xoogan u soo jeediyay ciidamada xoogga dalka qaybta 6aad ee ku sugan magaalada Baydhabo isagoona ku tilmaamay inay yihiin kuwa ugu liita ciidamada xoogga dalka sababtana uu ku tilmaamay inay tahay in ay ku weyn tahay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolada Baay iyo Bakool gaar ahaan magaalada Baydhabo inay yihiin kuwa ay ku weyn tahay qabyaalada. askarta ciidanka SNA ee joogo guuta 8aad guutadan 8aad joogo macallin saraakiishooda ciidamada SNA ee qaybta 6aad ciidanka ugu liita inuu wax dadka iska dhaafay waxaan miisaan saarnay dhibaatada ay sameynayaan iyo waxtarkooda boqolkiiba 80 waxaa batay dhibaatadii. maxay tahay dhibaatada? ciidanka haddii uu meesha uu joogo ciidanka SNA guutadii 8aad hadday kulligood qabyaalad u shaqaynayaan oo askariga iyo sarkaalka ay iska warqabin hadday iska warqabaan ay heshiis ku yihiin inuu kulligood qabiil ay ka shaqeeyaan askari lama noqonayo sarkaal lama noqonayo. haddii askarigii iyo sarkaalkiiba subaxii waaga markuu bariyo shaqo aan shaqadiisa ahayn uu ku mashquulsan yahay oo uu dhul goynayo dawladda hoose miya asagii uu dhulku bixinayo oo uu dhul gadanayo oo dhul isku dilayo uu maalin walbaba problem dhul u taagan yahay askari miya? ninkii sarkaalkaan uu hormuud ka yahay amaba uu raalli ka yahay oo asaga uu diray askari maaha. haddii ninka askariga ah oo ciidanka qalabka sida ka mid ah oo shacabkan iyo dalkan iyo dadkan u dhaartay
uu yahay inuu ummaddan badbaadiyo hadduu asaga maalin walbaba uu jidka taagan yahay oo uu nin shacaba ku dilaayo dhulkiisii oo uu nin shacaba jidka u taagan yahay oo uu dilaayo askari maaha. madaxweynaha ayaa dhanka kala tilmaamay ciidamada dawladda Soomaaliya inay dhibaato adag ku hayaan dadka ku nool deegaanadan gaar ahaan gobolka Baay. hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay kulan dhex maray madaxweyne Laftagareen iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan magaalada Baydhabo. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Saadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. kulamo xal loogu raadinayo kala aragti duwanaanshaha doorashada Jubbaland ayaa weli lagu soo waramayaa in ay ka socdaan magaalada Kismaayo xilli doorashada madaxweyne ee maamulkaasina la filayo in ay bari dhacdo. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya. magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ka soconaya dadaalo lagu xalinayo kala aragti duwanaanshaha ka jirta doorashada maamulkaasi kaasi oo ay u kaceen xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo wafuud ka socota dalka Itoobiya. doorashada Jubbaland ka dhici doonta ayaa noqotay mid laba dhinac ah maadaama maamulka hadda ka arrimiya Jubbaland ay sheegeen inay dhici doonto doorashada maamulkaasi maalinta berita ah halka qolyaha mucaaradka ah doorashadoodana ay dhici doonto isla maalinta berita sida ay sheegeen. sida la tilmaamay wasiirka gaashaandhigga dalka Itoobiya iyo taliyaha ciidamada AMISOM ee ka soo jeeda Itoobiya ayaa u gaaray Kismaayo xalinta khilaafka ka dhex xalaalsan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose iyagoo doonaya sida la shaaciyay in ciidamada loo diiday inay tagaan Kismaayo iyo saanadoodaba ay geeyaan halkaasi si ay ula wareegaan gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee Kismaayo halka iminka ay ciidamada Kenya iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ay gacanta ku hayaan. axmed maxamed islaam madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa la sheegay inuu xalay uu la kulmay xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland kuwa uu la sheegay inuu ka dalbaday inay doortaan maadaama wax badan ka bedelay Kismaayo sida ay ahaan jirtay beri haatana uu doonayo haddii uu ku guuleysto mar kale inuu gaarsiiyo Jubbaland horumar wanaagsan. warqad qoraal oo ka soo baxay guddiga amniga ee Jubbaland ayaa sheegay in maqnamadii xalay wixii ka dambeeyay ay xireen xuduudaha Jubbaland ceer iyo dhul ayna jiri dooneen wax soo galaya Kismaayo ama ka baxaya toona inta laga gaarayo 23 bishan oo maalinta Jimcaha ku beegan. mahadsanid Axmed. wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa askar loo diyaarinayo dagaalka Al-Shabaab kula hadlay xero ciidan oo ku taala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Liibaan Nuur Xasan ayaa warkan inoo faahfaahinaya. wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ku sugan deegaanada Galmudug ayaa gaaray magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud isagoo kormeer ku tagay xero lagu magacaabo Harqaboobe oo lagu tababarayo ciidamo la sheegay in loo diyaarinayo xoreynta deegaanada ay Al-Shabaab ka maamulaan bartamaha Soomaaliya gaar ahaan gobolada Mudug iyo Galgaduud ee Galmudug. ciidamada uu tababarku uga socdo xerada Harqaboobe ayaa laga soo qoray deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Galmudug waxaana xukuumadda Soomaaliya sheegtay inay qayb ka noqonayaan qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka oo fadhigoodu yahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. wasiir Maxamed Abuukar ayaa kula dardaarmay ciidamada tababarka ku jira inay ka faa'iideystaan fursadda la siiyay una diyaar garoobaan howlgalka Al-Shabaab looga xoreynayo degmooyinka iyo deegaanada ay ka arrimiyaan ee Galmudug. maanta farxad ay tahay in ay imaado aan soo boqo xeradan Harqaboobe waxaan idin leeyahay guuleysta sidoo kale waxaad ogaataan qofka bini'aadanka wuxuu u hibeeyo ama u baxsho waxa ugu muhiimsan nafta naftiina soo qaditeen waxaan u soo qaditeen naftiina inaad la dagaalantaan khawaariijta marka waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa halkaa inaan ugu mahadceliyo macallimiintiina dugsiga Harqaboobe oo hore habeen u taagan inay tababar idin siiyaan iyo sida ugu dhageeyeen aad aan ugu faraxsanahay way yartahay laba qof oo walaal meeshan ay ku jiraan waxa isugu timaadeen Soomaalinimo waxa isugu timaadeen in cadow qoriista aad ka sifaysaan deegaanada Galmudug insha Allah balanteena waa saas cadowgan gacan bir ku qabataan anagana ka xukuumad ahaan waxaan diyaarni lanahay wax kasta oo baahan tihiin inaan idin garab istaagno haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala. wasiirka amniga oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa deegaanada Galmudug ayaa sidaan oo kale xiriir ku yaala gudaha iyo duleedka magaalada Dhuusamareeb waxa uu ku kormeeray ciidamo iyagana la sheegay in loo diyaarinayo la dagaalanka Al-Shabaab waxaana gobolada oo ka arrimiyo maamulka Galmudug gaar ahaan gobolka Mudug ka socda dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa Danaba oo maalin ka hor si nabad ah kula wareegay deegaanka Camaar oo qiyaastii 85 kiiloomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Xardheer ee gobolka Mudug.
waxaana la sheegay in ciidamadaasi ay dib uga laabteen deegaankaasi kadib markii ay ku sugnaayeen maalin gelinkeed iyaga oo ka kaxaysay 3 nin oo ay sheegeen inay la shaqaynayeen al-shabaab. mahadsanid liibaan. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa magacaabay madaxa garsoorka ee gobolka Hiiraan Ismaan Aadan Carays ayaa warkaan inoo faahfaahinay. xubnaha garsoorka maamulka gobolka Hiiraan iyo degmooyinka Ismaan gobolka ayaa lagu magacaabay wareegta ka soo qaaday madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyadoo garsoorka gobolka Hiiraan la magacaabo ka dhaxmuqdo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan Cabdulciin Taakoy qadka isgaarsiinta aan kula xiriiray ayaa qiijiyey magacaabistaan isagoo sheegay badan ay ka bedeli doonaan xaaladda garsoorka gobolka. magacaabistaan uu sameeyey madaxweyne Waare ee garsoorka gobolka ayaa imaanaysa xilli baahi weyn u qabeen shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne iyo degmooyinka Ismaamada inay helaan garsoor cadaalad ah. garsoorka cusub ee lagu magacaabay gobolka Hiiraan ayaa wax hor yaalla howlo adag ay ugu horeyso shacab ku dhaqan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ee ay garsoor u raadsadaan deegaanada ay ka taliyaan dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii ay ku qanci waayeen garsoorka gobolka. muddo ka badan 3 cisho ayaa wax garsoor ah ee dadku ay ku kala dhacaan aan ka shaqaynin magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan iyadoo muddadaasi wixii ka dambeeyna dadka ay garsoor u raadsanayeen deegaanada ay ka taliyaan al-shabaab. Ismaan Aadan Carays, warbaahinta Kulmiye, Beledweyne.